عازمتي Soomaaliya oo xamar ahayd in arinteedii mugdo ku jiro oo xildhibaanadii joogay ay soo jeediyeen cidii aan reer xamar ahayn oo xamar u dhalan inay joogitaankoodii noloshoodu khatar ku jiro waxaan isku halaynaynaa oo maanta inoo fayo waa caasimada magaalada madaxda Puntland ee Garowe caasimada maayarka gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta maxkamadda ciidamada saldhigga iyo meel walba cid joogta hal qoys jooga magaalada gobolka Nugaal waxaa la rabaa in laga saaro Garowe sababtoo ah caasimad weeye caasimad hadaa maqashidna gobolka ma tirsana si caasimadii Soomaaliyeed oo calaamad su'aal saaran tahay aynu u bandhigi karnaa inay Garowe noqon karto caasimada Soomaaliyeed in maqaamkeeda la sugo dadka ka soo jeeda Puntland ayaa si weyn uga cuqdadeysan arrimaha la xiriira cidii iska leh magaalada Muqdisho ee caasimada dalka kadib khilaaf dhawaan ka dhashay oo la xiriira arrimaha ah magaalada Muqdisho in ay leeyihiin dad gaar ah oo iyagu ay sheegteen siyaasiyiin iyo bulshada ka soo jeeda Puntland ayaa si weyn u hadal haya arintaasi iyaga oo aanan ku faraxsaneen hadallada ah cidda iska leh magaalada Muqdisho ee caasimada dalka baarlamaanka Puntland ayaa maanta fadhi yeeshay waxaana ay soo hadal qaadeen lahaanshaha magaalada Muqdisho waxa ay isbarbar dhigeen magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Garowe ee caasimada maamulka Puntland waxa ay sheegeen Garowe kaliya inaysan ahayn caasimada Puntland oo ay noqon doonto caasimada Soomaaliya oo halkaasi loo guuri doono ayay maanta sheegeen iyaga oo ka hadlayay arrimaha amniga iyo horumarinta caasimada magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa ay sheegeen in magaalada Muqdisho ay tahay magaalo ay ka soo kala cararayaan baarlamaanka isla markaana ay noqotay magaalo dad gaar ah ay sheeganayaan aysan ahayn magaalo caasimadeed oo u dhaxaysa dadka Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in Garowe ay la tartami doonto caasimadaha kale ee dunida iyaga oo ku tilmaamay Muqdisho inay tahay magaalo mugdi ah oo aanan u qalmin caasimad Soomaaliyeed dadkuna aysan ka wada dhaxaynin Puntland ayaa si weyn uga carootay hadal uu dhawaan baarlamaanka labada aqal uu ka jeediyay senator Muuse Suudi Yelxo oo kamid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo senator Cabdi Cabdullaahi Xaashi oo ka soo jeeda Puntland uu ku tilmaamay inuu yahay soo galooti oo aanan ahayn nin ka soo jeeda Muqdisho uusan ka hadli karin arrimo la xiriira oo ku saabsan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka kaliya inuu ka hadli karo Garowe iyo sidoo kale deegaanada Puntland hadalkaasi ayay ka caroodeen baraha bulshada ayuna hadalkaasi si weyn u qabsaday waxaynu ognahay caasimadii Soomaaliya oo xamar ahayd in arinteedii mugdo ku jiro oo xildhibaanadii joogay ay soo jeediyeen cidii aan reer xamar ahayn oo xamar u dhalan inay joogitaankoodii noloshoodu khatar ku jiro waxaan isku halaynaynaa oo maanta inoo fayo waa caasimada magaalada madaxda Puntland ee Garowe aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in la keeno xeerka caasimada goloweynaha baarlamaanka anigoo aaminsan xeerarkii laga hadlay oo baarlamaanku ka soo hadlay markii laga reebo xeerka tayo dhowrka inuu yahay xeerka ugu mudan oo laga hadli karo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku faraxsanahay xeerka caasimadu waa magaalo madaxdii Puntland magaalo madax markii la yiraahdo waxa looga jeedaa noole markii laga matalo madaxa waxa ku yaala aragii iyo dhadhankii iyo maqalkii iyo maamulkii jimsiga kale magaalo madaxdu waxay u tahay madaxii magaalooyinka Puntland wixii ay noqoto iyadu baana kuwa kale noqonayaan waxaan leeyahay markii ay hagaagto magaalo madaxdu waxay noo wada hagaagay dalkeenii oo dhan magaalooyinkii kale laakiin iyadu markii ayna ka xumaato waxba inooma hagaagin waxaynu ognahay caasimadii Soomaaliya oo xamar ahayd in arinteedii mugdo ku jiro oo xildhibaanadii joogay ay soo jeediyeen cidii aan reer xamar ahayn oo xamar u dhalan inay joogitaankoodii noloshoodu khatar ku jiro waxaan isku halaynaynaa oo maanta inoo fayo waa caasimada magaalada madaxda Puntland ee Garowe waxa waajibana ku wada dhamaanteen wixii magaaladu ku santahay inaynu ka qabanno quraartii loo furo guddi loo qabto dhaqaale loo sameeyo waxa waaye magaalada amnigeeda iyo nolosheeda iyo caafimaadkeeda iyo nadaafadeeda iyo dhammaan wixii ay u baahan tahay aynu ka wada hawlgalno gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan kugu bogaadinaynaa hawshaas inay noqoto hawl waxa weeye loo wada guntado
adiguna hormuud aad u noqotid guddina loo qabto waxaan halkan uga soo jeedinayaa mahadcelin ninka la yiraahdo labada nin oo gudoomiyaha gobolka iyo maayarka oo duruufo adag iyo waqtiyaada ka soo shaqeeyay magaaladana aad iyo aad ugu dadaalay inay waxa waaye meeshay joogto hore uga sii socoto caasimaddu waa ladan tahay waa barwaaqo waa fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay meesha ay joogto in hore looga sii wado arrinteeduna waynoo wada taal innaga xildhibaano waa curaartii oo saddex ahayd boqolkiiba saddex maanta awoodda ay leedahay waynu garanaynaa magaaladii waa ballaaratay adduunkii waxa waaye dhibaatadii iyo cabtowgii iyo mushkiladii way iska bateen waxaa la rabaa ugu yaraan boqolkiiba 5 in la gaarsiiyo aad iyo aad baa u mahadsantahay orda caasimadda qoondadan loo sameeyay 2007 caasimaddana caasimaddii hore maanta maaha dhaqaalaha loo bixiyana dhaqaalihii hore maaha garowe intii hore waa ka weyn tahay waa ka ballaaran tahay waa ka muweyn tahay xilli ay ahayd laynka keliya oo barxadda oo aan dakhli soo galaa jirin oo mataqaanaa dhaqaalo dibadda uga yimaada aysan jirin oo maalgashi qurba jooga uusan jirin oo hay-adaha internationalka oo World Bank uu ka mid yahay aysan joogin ba horta qoondada madaxweyne Cadde Muuse sameeyay xilligan maanta aan ku jirno caasimaddu inta waa ka ballaaran tahay waana ka weyn tahay waana ka dakhli badan tahay arrinta amniga caasimadda marka la yiraahdo caasimaddu waa 5 kiiloomitir oo dhinacaana iyo 5 ilaa iyo mataqaanaa aeroboortka ilaa iyo mataqaanaa wadada gaaqayo u leexata caasimadda horta amnigeeda waxa laga ilaaliyaa gobolka Nugaal 3% baa sheegaysaa 10% wax ku badan baa ku baxa dhaqaalaha amniga caasimadda ciidamo kala duwan baa la siiyaa oo degan oo dawladda dhexe ay maamusho turbataariya kamida ciidanka booliiska kamida ciidanka mataqaanaa kale oo daraawiishta kamida oo degan adowtiin caasimadda dhowr meelood ka degan yihiin ciidanka madaxtooyada kamida intaas oo horta isku duuban dakhliga la siiyo waa dakhliga dawladda dhexe waxayna ilaaliyaan amniga caasimadda waxa kale oo jira caasimadda horumarkeeda marka laga hadlayo waa degmadu maanta meeshay marayso degmo Soomaaliyeed oo maraysa ma jirto hatta East Africa meelo kamid ah way ka horumarsan tahay degmada Garowe waxa rabaa horta bilicdeeda in baarlamaanka aan la keenin oo Garowe aan laga dhigin xaafad yar oo kooban heerkan caasimaddu marka inuu koro oo dib loo eego waa muhiim laakiin consultation baa waxa la sameeyaa waxa soo jeedinaya guddoonka iyo baarlamaankaba in guddo loo magacaabo heerkan ka kooban baarlamaanka consultation ay la sameeyaan reer Puntland dhammaan gobolada dalka oo dhan dadka degan sababtoo caasimadda dadka degan maanta waa dadkii reer Puntland oo dhan waa ku amaanana maayarka Geedi iyo gudoomiyaha gobolka iyo hay'adaha kale ka shaqeeya runtii inay Garowe ka tamaanta meel loo soo dalxiis tago loo yimaado Xamar iyo Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka marka anu waxaan ku soo gabagabeynayaa caasimaddu waxay u baahan tahay xeer in loo sameeyo